wuxuu afkiisa ka sheegay ciddii samaysay baan aqaanaa muxuu sheegay waa ciddii samaysay soo mas'uul kama saarna muxuu ugu sheegi waayay hay'adaha garsoorka muxuu ugu sheegi waayay hay'adaha amniga wuxuu yiri u fiirso hadalkiisa al-shabaab baa lacag la soo siiyay oo jidkay soo martay oo waday soo martay oo qofkii soo qaadaan aqaanaa waa ra'iisul wasaarihii dalka mutalaabo ka qaado muu sheego sida hadda anigu u sheegay muu u sheego muu ficil sameeyo maxaa u diiday laakiin ana hadda ku sheegay waa runtiisu wuu ogyahay cid samaysay waana asaga iyo inta ku xiraan anaga taa dambe ma dhihi karno adiga eedayntaada waa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Saad Yaasiin maalin kamid ah markii Djibouti lagu xiray maraan ismaqalnay markii lagu soo celiyay kadib waxaad ii sheegtay in shirka amniga qaranka aad tagi doontid warbixin halka ku dhiibi doontid maanta waqti badan ka soo wareegay maxaa dhacay oo inta dhan kiiskan heerka gaaray ee xogtiisa ee sargaalad aad garanaysid familhaan u garanaysid aad dadkooda dhan baan garanay qaraabada dhan baan garanay hay'adda aad madaxda u ahayd kamid ah askartaadii ama dadkii ugu dhawaa inaad tiraahdid intaas ka aamusnaatid maxaa ku kalifay mid waxa ahayd meesha institutionska dawladda aniga taliyaha nabadgelyada Soomaaliya soo noqday ka bacdan la taliyaha amniga qaranka noqday meesha ay tahay horta warbixinteeda inaan geeyo waa guddiga amniga qaranka meeshiina shirki inuu qabsoomaa laga hor istaagay wasiirka cadaaladda loo diiday inuu ka soo qayb galo wasiirka amniga loo diiday inuu ka soo qayb galo ra'iisul wasaarihi baa diiday inuu ka soo qayb galo haddii ra'iisul wasaarihi uu ka soo qayb gali waayo waxay noqonaysaa garab ka soo horjeeday oo sheekaystay buu u fasiranaya anuna meeshan rabay warbixinta inaan ka jeedo waxay ahayd asagoo fadhiya inaan sheego haddii taa ay hirgeli weysay laba sababood baa jirtay mid dalka xaalad doorasho ku jiray maana rabin fulkaano kale inay qarxdo buu qarxo lambar 2 madaxda la socota madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu xakameeyay hay'adaha amniga ah inaysan gacan aan aamin ahayn aysan galin gacan aan aamin ahayn markaan ka wadana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo rabay hay'adaha amniga inuu dhex galo taliyaasha bedelo wadanka oo dhan uu qalalaasa galiyo waxyaabihii loolanka ahaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka dhigay siyaasad laakiin annaga waxay noo ahayd dalkan bal inuu taagnaado inta doorashada laga gaarayo haddii Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu soo laabtana khayr haddii kalena qofkii kale loo dhiibay uu go'aan gaaro sheegi kara waxa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaana oo la yiraahdo Mahad Salaad oo hadda rabta feelkiisa mar kale aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa la kulan siiyay asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxa la geeyay Dar es Salaam xaafad la yiraahdo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxa la marsiiyay shabeellada hoose meel jilib u dhow baa la geeyay halkaas aan lagu dilay nin la yiraahdo Mahad Karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin Mahad Salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay aakhiro ay adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble farsamada lagu fuliyana al-Cadaala iska lahaa gacanta fulisayna Mahad Salaad waaye cid dishayna waa al-shabaab sidaas aan kugu sheegay oo qorshahaygu ahaa inaan guddiga amniga qaranka hortooda ka sheego laakiin si aysan xogtaas u bixin waxa la qaaday 4 talaabo hay'adda in la dhoofaada shaqada laga joojiyay taliye cusub in la magacaabo waad ogtahay in taliye cusub la magacaabay aniga ee boorka leegu celiyay Djibouti anoo transida oo dawladda Djibouti la isticmaalay oo la dhaxgalay markii aan xamar imaadayna waxa la diiday shirka in la qabto warayzaaro wuxuu diiday inuu shirka soo qayb galo marka haddii kiiska inta talaabo oo la qaado waxaad ka garan kartaa cidda qaadaysa maxay kiiskan u qaadaysaa taliyaha nabad sugidda haddii la rabo in la baaro shaqada laga joojiyay taliye kale la magacaabay safarkii baa loo diiday shirkii baa la diiday waxay ku tusinaysaa waxaas oo dhan waxa loo sameeynayo lixaajati fi nafsi Yacquub wax uu og yahay baa jira waa wax asaga uu og yahay inuu sameeyay maadaama uu sameeyay cid allaale iyo cidii warbixintaas sheegi kartaan inuu la dagaalamo dagaalku ra'iisul wasaaraha uu waday oo hay'adda ku qaadan laba hadaf oo kala ahaa sumcadda hay'adda in la dilo institutionka dawladda la burburiyo waa meesha ajnabiga ay ka soo galeen oo ay rabaan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka maadaama ay dawlado fara badan dhaaftay oo qaarkood dariska ay ka hormartay in dib loo soo celiyo heerkii faragelinta maalinta aan ku sheegayna lagu soo celiyo dawladda ajnabiga ee kiiska Ikraan fulintiisa fududeyntiisa qaadatay way waa laba dawladood mar raba hadda magacooda inaan sheego
dadka Soomaaliyeedna waa fahmayaan laakiin ma rabaan inaan magacooda sheego. laakiin Fahad waxaad sheegtay magacyo ay ka mid yihiin Mahad Salaad oo hadda hay'adda haysta injineer Maxamed Xuseen Roble oo ra'iisul wasaare ah iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta sidaas la mid ah dadka ajnabiga ah ee kiiska lugta ku lahaa ee aad eedeynaysid dadkaas dowladahaas labada sheegtay inaad magacoodid ayaan ka doonaynaa hadda inaan sheego diyaar u bihi asbaab jira dartood waxaa jira markaad mas'uul sirdoon soo noqotay fasax u baahantaa wadan iska sheegi karin hadda fasax laakiin dadka Soomaaliyeed waa og yihiin dowladahaas aan ka wado way yaqaaniin imaaraadka iyo Kenya miyay noqon karaan adiga dhahay ani ma dhihin adaa dhahay gabadha gaaraa lagu qaaday saa sheegtay waxaa la geeyay xaafad magaalada Muqdisho kamid ah gaarigana waxaa sheegtay in loogu ballamiyay xafiiska wasaarada waliba aniga wadanka waa ka maqanaay markaas sidku ogaatay waxaan rabaa inaan kugu daro xataa aan ka ilaabay dadkaas mar kastoon aniga wadanka ka maqanahay mashaariic sameeyaan kiiska ikraan waxaa la alifay anoo maqan kiiska hay'adda isbedel lagu sameeynaya waxaa la sameeyay anoo maqan 3 bari ka horna ma aqaan la socotay isbuucii hore gurigeyga la galay ciidankii iyo qalabkii iyo wixii yaalay baa la qaatay anoo maqan hal mar anigoo jooga waa awoodi waayay inay wax sameeyaan sidku ogaatay xogtan dalka dad ka maqnay waa xog culus oo xasaasiya in dad mas'uuliyiin maanta ah oo mas'uuliyiin xilal sare haya oo waliba booska aad joogtay niisa sargaalka loo magacaabo mas'uulka loo magacaabay aad ku eedanayso inuu kiiska isagu wax badan aan ku ogahay intaas kaliya ma aha qal dhibaato far badan oo amni darrada dalka ka dhacday qayb bay ka ahaayeen dadka aan ku sheegay ilaa ay gaareen xataa dariska inay dhibaato ka geystaan professor Cabdiwahaab oo Nairobi jooga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka shaqeeyay oo dhaqaale ku bixiyay oo systemka dawladda Kenya iyo dad kala duwan dhex galay oo gaangis rabay inuu isticmaalo qorshahan wuxuu ahaa professorka in la dilo waxa la rabay in loo dilana hal shay bay ahayd maxaa dawladda Soomaaliyeed qaran Soomaaliya u difaacaysaa intaas loo dilay waliba professorka waxaan diyaar u ahay in arrintaas xogta uga baahan yahay waqti kasta uga baahan